come ho già detto, col dizionario somalo-italiano. waxaan ka qayb galay konton guuradii qoraalka farta Soomaalida iyo sharcidii Soomaalida 1950 ilaa 1989 oo lagu qabtay jaamacadda Roma Tre ee ku taal magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin iyo wasiirada dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare Nuura Mustafa. iyo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xafladda aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo Talyaani oo ka mid ah Professor Cabdul Cumar Masuur iyo Professoresa Amirta Bulyeli. farxad iyo sharaf iyo fursad intaba ay noo ahayd maanta inaan ka soo qayb galno mashruucan oo lagu daahfurayay ama ahaa konton guuradii ka soo wareegtay maaragtay kaydka qoraalka Soomaaliga iyo shuruucda Soomaaliga ee loo kaydiyay anigoo wakiilka ah oo matalaya xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan halkaan maanta daahfurnay barnaamij aad iyo aad runtii muhiim u ah luqadeena Soomaaliga ah muhiim u ah taariikhdeena Soomaaliya muhiim u ahaan doona mustaqbalkeena dawlad dhisitaanka taariikhdeena markaan fahamno iyo meesha aan ka nimid oo noo kaydsan runtii waxaa noo fududaan doontaa inaan naqaano sida aan dalkeena dib ugu dhisan lahayn oo ah qayb muhiima oo hadda labada qaybood oo maanta meeshaan lagu soo bandhigay runtii dowladda Talyaaniga iyo jaamacadda Roma iyo macahadka intaa waa u mahadcelinaynaa hanti Soomaalidu ay leedahay oo aan runtii ka cabsanayn inay naga lunto ayay noo xafideen marka waxaa la yiraahdaa qofkii aanan dadka u mahadcelinin ilaahay umuusan mahadcelin oo kamid ah keedka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay muhiimada ay u leedahay Soomaaliya maxay tahay waa maasan tahay University TV iyo wasalaamaya xafiiska Roma University TV teamkeeda waxay u leedahay muhiimad weyn Soomaalida oo dhan gaar ahaan inta ka shaqeysa sharciga dadka qora maxaa la yiraahdaa research ka sameeya iyo ardayda Soomaaliyeed intaba waxay u tahay muhiim waana ku faraxsanahay in maanta xog heerkaasi cududaas leh in ay la wareegto dawladda Soomaaliya waliba dadka ka shaqeeyay ayagoo waqtigooda geliyay aan ognahay inaysan ahayn Soomaali laakiin Soomaali badan ay caawisay waxay u tahay dawladda Soomaaliya xaqiiqatan fursad ay ku heshay wax badan oo u baahna in hal meel lagu soo aruuriyo oo maxaa la yiraahdaa meel la isugu keeno waan uga mahadcelinaynaa teamka iyo dadka ka qayb qaatay iska xilqaamay waqtigooda badanna geliyay in ay ururiyaan xogtaas baaxadda weyn sida aan ognahay waxa ay noo sheegeen inay ku qaadatay in ka badan 45 sano waa wax weyn xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa intii anaga maxaa la yiraahdaa aan ku bixinaynay waqtiyadeena waxyaabaha kale ee maxaa la yiraahdaa Soomaaliya muhiimada oo la ayaga inay party qayb kamid ah ay ka qaateen dib u dhiska iyo dib u soo celinta Soomaaliya keedadkeedii ay ugu horeeyeen waxyaabihii laga qoray shuruucda luqadii Soomaaliyeed laftirkeeda waana ku faraxsanahay inay ku soo aaday konton sano guuradii afka Soomaaliga inay ku soo aaday maxaa la yiraahdaa xogtaan quruxda badan in aan ka helno maanta professorada iyo teamkeeda ay nagu wareejiyeen jaamacadda Roma Tre aadaan ugu faraxsanahay wax weyn Roma Tre keydkan waa wax aad u muhiim ah yani aad bay u dadaaleen in la soo saaro keydkan waxa ku dhex jiro waxyaabo fara badan ha ahaato buugag qadiimi ah buugag casri ah maqaalado hataa muusig baa ku jira iyo maxaa la yiraahdaa dokumentiyo kale keyd u gaar ah xeerarka ayana laga sameeyey lalaji marka waa wax yani qof kasta oo leh internetka uu heli karaa yani halkaas waa laga xiriiri karaa wax badan Roberto keydka keliya ma aha keydka waxa ka horeeyay mashruuca cilmi baarista Soomaaliyeed ayuu ka dhashay keydkan magaratay 2012 meelahaas sameyn marka mashruucii dhan oo 45 sano aan wadnay Soomaaliya laga soo bilaabay ilaa Itaaliya khaasatan aniga iyo islaanta ila waday macallimadeyda ah oo 8 jir aniga iga weyn da'an nahay
marka inta tabarteenna aan wadi karno waa wadnay marka waxaan ugu talagalnay inaan Soomaali aan ku wareejino qof walba xaduu leeyahay xadkeeni waa la gaaray markaan inaan sii wadno waa nagu adag tahay waxa waa in laga faa'iideysto oo halkan aan ku boloolen ku baaba'in Itaaliya dadkan ma danaynayn dantooda ma marka Soomaalidii inaan gaarsiino codkan war waxaasaan haynaa in laga faa'iideysto taas ay ahayd mooye wax oo la joojiye ma aha waxaan rabnaa ushaan cidda aan u dhiibi lahayn la sii wadaa la rabaa marka hore maxaa loo aasaasay marka hore waxaa loo aasaasay markii aan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed aan macallimiin aan ka ahayn waxaa Talyaani dowladda Talyaani iyo dowladda Soomaali waxay ku heshiyeen inay gacan nagu siiyaan sidii markaas jaamacadda macallimiintoodii waxay ahaayeen Talyaani ahaayeen iyaga dhigi jiray marka waxaa lagu heshiyay in la Soomaaliyeeyo oo Soomaali badan ma artay aayar ay bedelaan professorada Talyaaniga ah iyo heshiis kale oo jiray in af Soomaaliguna ma artay cilmi baaris ahaan gacan ay nagu siiyaan nimanka Talyaaniga oo khubaro ah oo ku xil dheeraa cilmi afeedka inay gacan nagu siiyaan sidii loo horumarin lahaa af Soomaaliga dhigistiisii marka maadaama nimankan ay ahaayeen linguist gacan ay nagu siiyeen af Soomaaliga baaritaankeeda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdidoon maanta waxaan ku kulannay jaamacadda La Roma Tre ee ku yaala mashruuci keedka Soomaaliya bal xafladda maanta nagu waran si xaalkeeda bismillahi raxmaani raxiim runtii xarunta kaydka Soomaaliyeed waxaa la qabtay howl ballaaran oo 45 sano ugu dambeysay soo socotay ka soo bilaabatay Muqdisho haddana sanooyinka ugu dambeysayna ka socotay magaalada Roma jaamacadda Roma Tre hawshaas waxaa bilaabay fikradeeda lahaa abaabulkeeda lahaa socodsiinteeda lahaa Professor Anarita Puglielli dad badan baa la soo shaqeeyay oo safka hore ugu jira Professor Cabdalla Mansuur team ballaarana meesha ka soo shaqeeyay oo waxyaabo kala duwan ka soo shaqeeyay shaqadii ugu dambeysay qaamuuska dugsiyada sare iyo bulletin official waxa la yiraahdo faafinta rasmiga ay kamid ahayd anigu waxaan nasiib u yeeshay aad ugu faraxsanahay kuna faanaya in 2014 ilaa 2019 tiimamkii halkaas ka soo shaqeynayay aan qayb ka ahaa runtii waxa aan ku kordhiyay waxaa ka ballaaran 100% waxaana iga kordhay konton guuradii qoraalka farta Soomaalida iyo sharciyada Soomaaliya 1950 ilaa 1989 oo lagu qabtay jaamacadda ku taal Roma Tre waxay ku dhamaatay jawi wanaagsan Maxamed Roberto Universal TV Roma